بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم ملا شوكتان با شلay baa waxaan dhegeysanayay VOA-da iyadoo Axmed Faarax Cali idaaja barnaamijkii dhaqanka uu kaga hadlayay heesta Soomaaliya toosoo dabeedna markaan dhageystay barnaamijkii dhamaaday ayaa wuxuu sheegay inuu heesta iska lahaa Cali Mire heestii midhaheediina uu tiriyay iyadoo laba qaybooda qayb ta'laya oo qaafiyadu taa tahay iyo gabagabadii heesta oo alif leeyahay ama ay qaafiyadeedu ahayd 1985 ayuu nidaamkii Maxamed Siyaad Barre u qaatay heesta astaanta qaranka Soomaaliya toosoo 85 markaan waxaan ku sugnaa magaalada Dirlabe waxaan ka tirsanaa ururkii go'aanimo doonka ahaa ee SNM laga bilaabo maalintaas ayay heestaasi noqotay wax lagu murmo laakiin cid soo hadal qaadi jirtay waqtiga ka hor ma ay jirin beriga in yar baan ka qoro waxaan ka qoray jariirad yar ama wargeys yar oo wareegiisu iska koobnaa oo ururku lahaa ayaan ku qoray oo aan kaga hadlayay maalin uu Yuusuf Xaaji Aadan iga sheekeeyay heestaas waxaan jeclay sheekadii inaan idinka dhaco waxaad 1976 waxaan joogay oo aan ku sugnaa markaa Yuusufna wada joognay magaalada Muqdisho waxaan u maleynayaa haddaan xusuustaydu degayn inay ahayd bilihii November ama October ee ugu dambeeyay dabayaaqadii 1976 galab bay ahayd salaad casar laga soo baxay waxaan joognay halkii la oran jiray National Theatre-ka gaar ahaan halkii makhaayadu ahayd baan in yar u jirnay Yuusuf Gaariyaro uu wadan jiray oo otojanta jinkuanta ahaa ama 850 ayuu wadan jiray ayuu ka soo digay galabtaas halkii baan yar fadhiisanay dabadeedna wuxuu iga sheekeeyay heesta Soomaaliya toosoo Yuusuf Xaaji Aadan waxaan ka wada tirsanayn guddi qaban qaabo oo heer qaran ahayd oo diyaarinaysay bandhig la oran jiray bandhiga fanka iyo suugaanta oo loogu diyaar garoobayay bandhiga dhaqanka iyo fanka ee beelaha madow oo ku qabsoomay berigaas dalka Nigeria magaalada Lagos guddidaa waxaanu ku ahayn 5 baanu ahayn heer qaran Yuusuf Xaaji Aadan Cilmi Qabile Xuseen Sheekh Axmed Kadare Maxamed Cali Kaariye Saciid Saalax Axmed iyo aniga 5taas aanu ku ahayn gelin hore tiyaatarkan joog jirnay oo brofooyinka ciyaaraha heesaha riwaayadaha gabayada suugaanta ayaanu dhageysan jirnay gelinka dambana waxaan qorsheyn jirnay barnaamijyadii hawl waxay yihiin galabtaas uu iga sheekeeyay wuu dhintay Kadare Yuusuf Xaaji Aadan wuu dhintay Maxamed Cali Kaariye wuu dhintay Saciid Saalax uu nool yahay garan maayo inta nala joogtay Yuusuf wuxuu igu yiri berigaas heestu waxay ahayd 1947 ayaan xoriyay wuxuu ii sheegay Yuusuf Xaaji Aadan inuu ku sugnaa dugsiga Sheekh oo markaa macallinka ahaa Yuusuf Xaaji Aadan wuxuu ii sheegay markuu midhaha dhameeyay iyagoo dalcadda Sheekh maraya inay codka iyo laxankana u sameeyeen codkan lagu qaaday Soomaaliya toosoo isku tiirsada Yuusuf sheekadiisa maalintaa wuxuu igu daray dadkii iskuulka la joogay macallimiinta ahaa ama maalintaa la socday ay dalcadda Sheekh marayeen inuu ka mid ahaa ninka la yiraahdo Cali Mire oo isna macallin ahaa ma garanayo inuu nool yahay iyo inuu dhintay hadduu dhintay naxariistii jannaalaha siiyo anoo caruuraan Hargeysa ku garanaya isagana oo xushmad iyo qadarin bay iga mudan labaduba macallimiin bay ahaayeen oo shaqo shariif ah ay qaban jireen ama u soo qabteen ummadda iyo ka badanba dabeedna Yuusuf Xaaji Aadan wuxuu ii sheegay maalintaas in markii ugu horeysay heestaa laga qaado meel fagaara ah ay ahayd xaruntii xisbiga leegada ee magaalada Gaalkacyo oo la oran jiray direedsiyoonaha leegada halkaas heesta habeen laga qaaday dabeedna Yuusuf way iska soo noqdeen heestii halkaas ka tagtay dabeedna waxay tagtay Muqdisho waxa ku qaadi jiray dad badan oo ka mid ahaa Qaasim Hilowle Faadmo Qaasin Aabaheed oo nin dheer oo xoog weyn oo madow ahaa oo cod laxaadle oo aad u luxdan lahaa وملاك فعنا لها كون سهن أوبرا لنا يوروب تلاقي قاضو مناسي وناسين قاضي لها نكاسا قاضي شري وحن فيلا هاستين لقدي لحنكي لبها صوت
ilaa 3 heesood oo kale kolley mid haalaya waan garanayaa mid caalayana waan garanayaa oo xamar baryaha laga qaadi jiray waxaa fiicnaan lahayd cabdi maxamed amiin inuu noolaan lahaa si uu uga sheekeeyo Soomaaliya toos iyo kuwii kale laga dhigay ee xamar laga qaadi jiray sidaasaan anigu ku maqlay heesta Soomaaliya toosoo isku tiirsada oo Yuusuf Xaaji Aadan oo maanta mootan oo aan isdaafici karayn oo aan xuquuqdiisa sheegan karayn uu lahaa oo uu iga sheekeeyay waxaan maqlay markii ay soo baxday noqotay astaanta qaranka in dad badan sheegtaan waxaad Yuusuf Xaaji Aadan mid buu ahaa cali mire mid kale uu ahaa Faadmo Qaasim baa laga sheegay inay sheegatay oo tiri aabahay Qaasim Bilowle ayaa lahaa marka anigu cali mire waxa la yiraahdo waxaan oranayaa ma jirto xishmad iyo xaq dhowr buu iga mudan yahay laakiin tii sheekada in lagu daro inuu Yuusuf Xaaji Aadan ka mid ahaa dadkii heesta curinteeda lahaa welibana Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan buuga aabaheed ku qortay way ku dartay welibana waxaan filayaa in heesta Yuusuf Xaaji Aadan Soomaaliya toosa ay qaafiyadeedu sida u dhan tahay ahay taal marka intaas aan u howlwaday inaan ka sheego heestaas waxaan su'aal ku weydiin lahaa markii hore intii aan cidi sheegin 47 iyo 48 muddo dheer baa u dhaxaysay 40 sano ku dhawaad ah markii heestaasi maxamed siyaad barre sheegin heesta qaranka noqonayso maxaa keenay bay kula tahay in intaas oo qof ay sheegtaan waxa keenay caan markay noqotay waxay noqotay in qof waliba maadaama heestii nin waliba qaado oo meel walba laga qaado oo qof waliba ku luuqeeyo ay hees Soomaaliyeed oo baahday noqotay kolka horena ay halgankii gobondoonka astaan u ahayd marka caanbaxa heesta waxa ku jira caanbaxa magaca cidii curisay waxa ku jira magaca caanbaxa qofkii laxanka sameeyay kii musiga tumay sidaas oo dhan marka maynaan maqal jirin dadkan xataa Yuusuf Xaaji Aadan naftiisa ayaa laga yaabaa inaan la maqal jirin 5 ka hor laakiin tii markan ay astaanta qaran noqotay aroor walba in meel walba iskuulada laga qaado xaflad walba laga qaado marti imanaysa iyo marti goofaysa loo qaado hodee xataa maadaama astaan qorantay dalalkii dibadduna laba qaran Soomaaliyeed oo ku jira qaramada midoobay madaxweynaha dhoofiyay markay heestii halkan gaadhay nin waliba wuxuu jeclaystay inuu isaguna magaciisa ku lamaanaado goorma adigu aad maqashay markaad barbar dhigtay inta qof ay sheeganaysa anigu waxaan maqlay markii 85kii la yidhi waa astaan qaran anigoo halgankii hubaysnaa dib u xoreynta qaran ee Soomaaliya ka ku jira ayaan toos anu BBC uga dhageysan laakiin tii markii dambe dadku ay sheegeen in Faadmo Qaasim la wareystay in Yuusuf Xaaji Aadan la wareystay in dad kale BBC wareystay waa la ii sheegay marka awal bal isma wareysan jirin caanbaxan un baa keenay dabeedna adna ku caanbax 85kii markaad warbaahinta ka maqlayso ka hor imsa sanad u dhaxaysay markii Yuusuf Xaaji Aadan kaaga sheekayn doono iyadoo heesto bacaan ahayn aniga wuxuu sheegay 67 marka macnaheedu waxa weeyaan adiga xilligu ku sheegay xilliga heesta qaran laga dhigay 10 sano u dhaxaysay 10 sano u dhaxaysay markaad maqashan dad kala sheeganayaan 10 sano u dhaxaysay 10 sano u dhaxaysay waya heestaasi door nooc ma bay ku lahayd halgankii dib u xoreynta ama halgankii dhaqdhaqaaqay gobonimo doonka Soomaalida isagu markuu aniga igu yidhi halkan ay ka tagtay oo markaan halka qaadnay gaalkacaya markii ugu dambeysay laga qaado directioni leegada ayaa laga qaaday markuu igu yidhi waxaan fahmay inay halkaa ka dhaqaaqdo directioni leegada ee kale ee xamar ay tagtay laakiin tii halkan un baan ku ogaa waxa laga yaabaa qaadista la qaadayo heesta iyo shirarka la abaabulayo inay ku xoog weynaydba Muqdisho iyo koonfurta ama Soomaaliyadii Talyaanigu gumaysanay ayaa laga yaabaa laakiin tii ilaa bariga heestu way socotay oo astaan qaran bay ahayd oo astaan gobonimo doon bay ahayd oo astaan midnimo ahayd oo sidaas ay ahayd maxaa kalifay bay kula tahay in laga dheego heeso kale oo la laxan iyo luuq ah laakiin midhaha uuna ka duwan yihiin waxaa keenay maadaama ay caan baxday waa ku dayasho heesaha kale ma gaadhayaan maqaamka ay gaadho kow way ka horreysay laba ruuxa iyo spiritka ku jira uu ka wanaagsanaa laakiin tii maadaama ay had ku dheg noqotay waxay doonayeen in sida iyada loo jeclaaday oo kale kuwana loo jeclaado wax xumaanaho ku jirayna muu jirin cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waxaa jira heestan oo qura ma aha taariikh badan oo dadka qaar muran geliyaan maxaa u sababay
u muuqataa maxaase lagaga gudbi karaa in taariikhdu aanay sidaasi u noqon inaanay lumin waxa la horta xuquuqdii daabacaadda meesha ka maqan oo iminka heesaha waynu wada dhegaysanaayo heesahan aynu dhegaysanayno dadka qaadayin baynu naqaanaa mar ayaa iminka waxaynu aada u maqalaa qofka midhaha tiriyey waxyaabaa la yaab kariyo waxa weeye inaynaan aqoon qofka laxanka u sameeyey waana waxaan kala dhicinoo iyaduba waa curin oo waa hal abuur oo kani ereyuhu abuurayaa oo wax fudud oo ereyuhu curinayaa qofkan hawada ku jira ee codka sameynaya ayaa kasii hawl badan oo ka fikir badan kan kale marka xuquuqda daabacaad waa mid oo midda labaadna diiwaangelin la-aanina way jirtaa oo imika waa laga yaabaa inaynu heblaaya qaaday heestaas ama hebel baa qaaday hebella midhuhu sameeyey laakiin haddii lagu weydiiyo codkayaa lahaa cidna garan mayso marka kuwa muranka gelaya waa kuwaas qoraal la-aantii imika waxaad moodaa waxoogaa qoraali inuu jiro ama website ha noqoto ama wargeysa ha noqoto ama bugaag ha noqoto ama diiwaan ha noqoto markaa wixii waa la kala yeelanaya laakiin tii waxaa hore oo dhami murankaasi sidaa ugu jiraya xalkuna muxuu noqon karaa xalku wuxuu noqonayaa xuquuqdii daabacaadda oo aan cidina cid ka qaadan karin waxeeda xalku wuxuu noqonayaa in cid waliba waxeeda ay diiwaan gashato si rasmiya u diiwaan gashato oo aanay noqonin hebel baa lahaa iyo hebel baa yidhi iyo hebel baa tiriye wax qoran oo dokumenti ahoo meel yaalla inuu jiro